subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee radio kulmiye qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah warar dheeraad oo ka soo baxaya dagaal ciidamada ADMIS iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray degmada Waajid ee gobolka Bakool ciidan dagaal oo saaka ka taagan deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud kadib dagaal halkaas ka dhacay madaxda dalka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo shacabka ugu hambaliyay munaasabadda maalinta calanka Soomaaliyeed oo maanta ku beegan laamaha ammaanka degmada Jallaqsi oo xabsiga dhigay dhalinyaro la sheegay inay u dabaaldegayeen munaasabadda Hiiraan State Faransiiska oo u yeeray safiirkii Israa'iil u fadhiyay iyo Xamaas oo weerar culus ku qaaday caasimadda Israa'iil wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega waa subaxnimo sabtiga taariikhdan waxay ku beegan tahay 12 Oktoobar sanadka 2024 Marina Cabdulla Xasan ayaa la diyaaray qodobada aad maqasheen oo dhameystiran Cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay subax wanaagsan u diyaar garooba warkii aad maqasheen oo faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada ADMIS iyo al-shabaab ku dhex maray degmada Waajid ee gobolka Bakool Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa ka waramay warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ciidamada Itoobiya ee qaybta ka howlgalka ADMIS iyo maleeshiyaadka al-shabaab ku dhex maray saacadii la soo dhaafay degmada Waajid ee gobolka Bakool kaas oo lagu soo waramayo inuu geystay khasaare kala duwan iskugu jira dhimasho dhaawac sida wararku ay sheegeen dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolkaas Bakool waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo saacado badan socday goobjoogayaalaha warbaahinta ayaa waxay sheegeen in maqlayeen dhawaq rasaas dhinacyada isku adeegsanayeen waxaana la soo warinayaa in dagaalkaas khasaare labada dhinac uu soo kala gaaray inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha dhimashada iyo dhaawac ee dagaalkaasi ka dhashay ciidamada Itoobiya ee qaybta ka howlgalka ADMIS ayaa la sheegay inay adeegsadeen madaafiic culus oo si weyn loogu maqlay degmada Waajid iyo deegaanada hoostaga kuwaas oo ay ku duqeeyeen goobaha ay ku soo weerareen maleeshiyaadka al-shabaab ciidamada Itoobiya ayaa soo kala soo wariyay dagaalka kadib inay ka baxeen saldhigii ayagoona sameeyay howlgallo baaritaana oo ay ku baadigoobaan al-shabaabkii weeraray saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamada Itoobiya ee degmada Waajid saraakiisha ciidamada Itoobiya ayaa laga soo xigtay in dagaalkaas khasaare xoogan ay ku gaarsiin maleeshiyaadka al-shabaab isla markaana ay soo bandhigi doonaan dhinaca kale maleeshiyada al-shabaab oo ka hadlaya ayaa waxay sheegeen in xubno ka tirsan dagaalamayaashooda ay weerar xoogan ku qaadeen saldhigii ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay maleeshiyaadka al-shabaab ay sheegeen halkaas ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada Itoobiya sidoo kalena ay dhaawaceen kuwa kale ayagoona hoosta ka xariiqay maleeshiyaadka al-shabaab in hub ay ka furteen ciidamada Itoobiya sida hadalku dhigeen balse ilaa hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo sheegashada maleeshiyaadka al-shabaab ay ku aadin in halkaas ay ku direen askar ka tirsan ciidamada Itoobiya xaaladda ayaa ahaatay mid degan waxaana haatan gacanta ku haya ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya al-shabaab ayaa inta badan waxay weerar xoogan ay ku qaadaan saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa howlgalka ADMIS oo ku leeyihiin gobolada dalka maanta oo kale 12 bishii Oktoobar 1954 oo laga joogo 70 sanadood waxay ku beegan tahay maalintii aas-aaska calanka Soomaaliya ee buluuga ah ee xidigta cad ee shanta gees ee dhexda kaga taal burburkii Soomaaliya ka dhacay ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay weyneynta calanka oo ku dhex lahaan jiray bulshada Soomaaliyeed laakiin Soomaalida dibadda iyo gudahaba marka ay xalfadaha iyo munaasabadaha ay isugu yimaadaan waxay astaanta ka dhigtaan lulista calanka Soomaaliya madaxda dalka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabada maalinta calanka Soomaaliyeed 12 Oktoobar oo maanta ku beegan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa waxa uu ku yiri waxaan hambaliyo ku aadan maalinta calanka Soomaaliya u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaana sidoo kale ama si gaar ah hambalyo ugu dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalkeena kuwaasoo naftooda u huray ilaalintiisa intii u dhimatayna Allaha u naxariistay intii daaficiisa u taagan ee baha guuleeyo ugu dambeyn waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay midoobaan wax walba
oo waxyeelada waa inay u midoobaan wax waliba si loo difaaci lahaa calanka iyo midnimada Soomaaliya ayuu warkiisa kusoo gabagabeeyay Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya. xiisa dagaal ayaa saaka waxa ay ka taagan tahay deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud kadib dagaal halkaas ka dhacay. Cabdisalaam Xaaji Axmed ayaa ka waramay. Qofaayno dheeraad ayaa ka soo baxay xiisad dagaal oo wali ka taagan deegaanka Laandheer ee waqooyiga gobolka Galgaduud. xiisadan ayaa timid ka gadaal markii laba maleeshiyo beelaad dadka deegaanka ay isku rasaasayeen deegaanka, waxaana la soo warinayaa in rasaasayntaasi ay ka dhalatay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac taa oo soo kala gaartay labada dhinac ee ku dagaalamay deegaanka Laandheer ee waqooyiga gobolka Galgaduud. inkastoo aan lahayn xog rasmi ah oo ka hadlaysa khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka Laandheer, haddana waxaa la soo warinayaa in labada dhinac soo kala gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dadka deegaanka ayaa sheegaya in labada maleeshiyo beeleed uu soo kala gaarayo gurmadyo xoogan ka oo kaga imaanaya deegaanada ku hareeraysan deegaanka Laandheer ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Colaadda Laandheer ayaa salka ku haysa muran ka dhashay daaqsin iyo ceelbiyood. waxaa sidoo kale fashil ku soo dhamaaday gogol iyo wadayn qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka waqooyiga gobolka Galgaduud taa oo la doonayay in xal looga gaaro colaadda soo laabatay ee ka taagan deegaanka Laandheer. maamulka Galmudug ayaa sidoo kale dhowr jeer hore waxa uu ku guuldareystay in uu qaboojiyo colaadda gaamurtay ee dhex taala labada maleeshiyaad ee ku dagaalamaya deegaanka Laandheer. deegaankan ayaa sidoo kale waxaa dhowr jeer hore ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay maleeshiyaad dadka deegaanka ah taa oo ku dhinteen in ka badan 50 qof, halka sidoo kale ay dad fara badan ay ku barakaceen. ma jirto ilaa ay haatan wax xal ah oo weli laga gaaray colaadda deegaanka Laandheer, waxaana saaka la soo warinayaa in goobihii lagu dagaalamay ay weli ku kala sugan yihiin maleeshiyaadkii israasaynta ay ku dhex martay deegaanka Laandheer ee waqooyiga gobolka Galgaduud, kuwa oo dadka deegaanku soo warinayaan in saacad kasta laga cabsi qabo in mar kale uu dagaal toos ah ka dhaco deegaanka Laandheer ee waqooyiga gobolka Galgaduud. laamaha amniga degmada Jaalaqsi ayaa xabsiga dhigay dhalinyaro la sheegay inay u dabaaldegayeen munaasabada Hiiraan State. Daahir Abshir Xasan ayaa ka warmay. wararka ka imaanaya degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maamulka degmadaasi uu xabsiga u taxaabay dhalinyaro u dabaaldegaysay sanad guurada maamul la magacbacay Hiiraan State, kaasoo waxaan aqoonsiga ka haysan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. dhalinyaradan ayaa markii la qabanayay waxa ay ku guda jireen xaflad ay ugu dabaaldegayaan maamulka Hiiraan State. gudoomiyaha degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan Nuur Dheere oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhalinyaradan markii la soo qabanayay ay ku guda jireen falal lid ku ah ammaanka iyo xasiloonida guud ee degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan, isla markaana aysan aqbali doonin dabaaldeg loo sameeyo maamul la magacbacay Hiiraan State. xirxirka dhalinyaradan lagu geystay degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa salka ku haya khilaaf baan u dhaxeeya maamulka Hirshabeelle iyo maamulka la magacbacay Hiiraan State. si kastaba ahaatee qoqobashada dhalinyaradan lagu xirxiray degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa imanaya iyadoo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada si weyn u qabsaday xaflado kala duwan oo la sheegay in lagu dabaaldegayo maamul la magacbacay Hiiraan State, iyadoo xafladahaas qaarkood uu ka dhacay meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. subax wanaagsan, halka warkaas subaxaad kala socotaan waa Radio Kulmiye. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa si degdeg ah ugu yeertay safiirkeeda magaalada Tel Aviv ee Israa'iil kadib markii Israa'iil ay weerareen howlgalka qaramada midoobay ee dalka Lubnaan. Faransiiska ayaana sheegay inaan loo dul qaadan karin waxay ugu yeereen xasuuqa ee weli ka socda dalka Lubnaan, kaasoo ay geysanayaan ciidamada Yuhuudda. ugu dambeyntiina ururka Xamaas gaar ahaan garabka militariga Kataib al-Qasam ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar aan horey loo arag kaasoo ka dhacay gudaha magaalada Tel Aviv ee caasimada dalka Israa'iil. weerarkan ayaa yimid kadib markii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana la arkayay dhowr diyaaradood oo ka gudbaya nidaamka daafaca Israa'iil. diyaaradahan ayaa waxaa farsameeyay injineero ka tirsan ururka Xamaas, waxaana loogu magac daray Suwaari, kaasoo ahaa injineerkii ugu weynaa ee ururka Xamaas laguna magacaabi jiray Maxamed Suwaari. sanado ka horna lagu dilay gudaha dalka Tunis. gudahaana warkii subax waa nageynta.